maanta oo kale dunidu idil waxaa laga xusaa maalinta caalamiga ah ee raadiyaha waxaa lagu weyneeyaa muhiimadda uu raadiyaha ka soo qaatay nolosha aadamaha iyo kaalinta uu hadda kaga jiro waxaa hadda u xirmay 100 sano qarni xog maaweele iyo tacliin waa halku dhagay sanadkan u calaamadeysay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan tacliinta sayniska iyo dhaqanka ee magaceeda loo soo gaabiyo UNESCO xuska 13 Febraayo in ka badan 70 sano ayay dadkeenu marag ka yihiin sida uu raadiyaha marxalado kala duwan oo adag uga soo gudbiyay walina waxaa la rumaysan yahay inuusan kaalinta baneynin walow ay jiraan caqabado uu wajahayo oo dhanka warbaahinta casriga ah ustaad aadan macalin cabdullaahi aadamow waa rugcadaad saxaafadeed oo in muddo ahi ku jiray shaqada raadiyaha hadda waa agaasimaha idaacadda maxalliga ee danan waxa uu inoo sharaxayaa taariikhda raadiyaha ee dalkeena Soomaaliya taariikhdeeda marka dib loo fiiriyo raadiyo waxa uu ka bilowday kuntameeyadii xilligaas oo laba gobol ama laba idaacadood ay ka jireen dalka gaar ahaan raadiyo Muqdisho oo waqti dambe laga sameeyay Muqdisho iyo raadiyo Hargeysa oo isna waqtigaas ka hor laga sameeyay magaalada Hargeysa marka Soomaaliya xilligaas laga soo bilaabo ilaa burburka laga soo gaarayay waxa ay lahayd laba idaacadood oo ah idaacadaha ku shaqeeya mawjadaha gaaban iyo FW waxaas wixii ka dambeeyay burburka ayaa markaa waxa soo baxay idaacado aad u fara badan oo ayagu laftigooda muddo kadib tadawur sii sameeyay ilaa ma laga soo gaaray haddana sanadkii 2000 iyo wax ka sii dambeeyay oo idaacaduhu ay isu sii bedeleen muuqaalkan uu soo batay aweys xaaji nuur oo kamid ah wariyaasha in muddo ahi kasoo shaqeeyay raadiyaha madaxna kasoo noqday warbaahinno badan ayaa qaba in raadiyuhu wajahayo loolan kaga imanaya aaladaha xiriirka bulshada balse taas cagsigeeda weli la oran karo raadiyuhu wuxuu haystaa kalsooni buuxda xilligan casriga ah ee digitalka la joogo ee digitalku uu aad u ahana qaaday raadiyaha wuxuu ka joogaa meeshii ugu sarreysay ee dhinaca kalsoonida haddii af carabi aan ku sheegno misdaaqiyada ku kalsoonaanta hubantida ayuu joogaa marka aan sidaas ku dhahayo waxa waaye ma ku cabiraayo hal raadiyo laba raadiyo oo aan isla naqaano ama dadka ay yaqaanaan oo ama xamar ku yaala ama meel kale oo Soomaaliya si guud ah caalamka maxaa yeelay raadiyaha waa meel station leh xarun leh oo la yaqaano oo diiwaan gashan oo dadka ka shaqeeya dad la yaqaan ah digitalka laakiin wuxuu soo kordhiyay wax la yiraahdo hawo dad aadan arkaynin iyo bar aadan aqoonin xiwaan kaliya kula hadlaaya marka sidaas darteed waxa uu ku sheegayo aan la hubin marka raadiyaha waa meesha loogu kalsoonida badan yahay xilligan ee dad la yaqaano oo la hubo iyo meel la yaqaan ah Cabdi Fataax Kalgacal oo barnaamij soo saare ka ah mid kamid ah idaacadaha maxalliga ah ku dhawaad 20 sanana ka shaqeynaya raadiyaha ayaa noo sheegay in marka la isbarbar dhigo bilowgii ka shaqeyntiisa raadiyaha iyo maanta uu dareemayo farqi weyn oo ku socda dhageysiga raadiyaha isbedel weyn jiro sababtoo ah dadkii barigii hore raadiyaha aad u dhageysan jireen raadiyaha saybaarta warbixinada mar walba kala socon jireen waxa laga yaabaa xataa adoo yaani maarta magaalada joogo inay dadka codkaaga gartaan laakiin hadda taas way ka duwan tahay oo maarta bulshada marka loo fiiriyo la falgalka yaani waxay aad u raaceen social media iyo aaladahan casriga oo hadda yimid oo maxaa la yiraahdaa isha raadiyaha meel la fariisan jiray qofka hadda waxa muddo inuu ka tagay oo qof walba maanta xaafadaha qaar tagto waxa laga yaabaa inaan laga helin raadiyo la dhageystay wax la mid ah laakiin qof walba inuu mobilkiisa wax walba kala socdo oo yaani maarta raadiyaha iyo telefishinkii iyo wax walba isku ah inkastoo ay jiraan doodo xoogan oo tilmaamaya in raadiyaha gabalkiisu sii dhacayo haddana qubarada iyo dadka aqoonta u leh warbaahinta waxay qabaan aragti ka duwan taas aweys xasan maxamed oo muddo kusoo shaqeeyay raadiyaha iminkana ku shaqeeya warbaahinta la iska arko ayaa qaba in marnaba raadiyuhu lumaynin kaalintiisa isagoo aragti wax ifinaysa la wadaagay milkiilayaasha iyo dadka ka shaqeeya raadiyaha si guud waxaan raadiyaha sii jirayaa oo jira way fiican lagu soo qaatay aniga aan ku soo qaatay adiga ku soo qaadatay daawadayaasha qaar ay ku soo qaateen haddana lagu sii qaadan doonaa maxaa fariin ah oo aad la wadaagi lahayd maalintan caalamiga ah UNESCO 2011 asteesay 2012 qaramada midoobay ay ka dhigtay maalmaheeda international dayska ay ku dartay maxaa lagu xasuustaa dadka iyo fariimaha waxaan dhihi lahaa raadiyaha traditionalka ahaa ama taqliidiga ahaa ha loo soo raro baraha bulshada internetka podcast hadda yimid ha lagu dabaqo podcast kale asna waxyaabaha soo kordha kamid ah dadka audiyaha aad loogu baahan yahay
13 Febraayo 2013 ayaa markii ugu horeysay dunida lagu xusay maalinta caalamiga ah ee raadiyaha. waxay ka dambeysay markii golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay meel mariyeen sanadkii 2012 soo jeedin ka timid xubnaha ku jira hay-adda UNESCO sanad ka hor oo ku beegan 2011.